runtii waana idin soo dhaweynayaa idinkana bahda gudbiya online. Haddii aan u guda galo falanqeynta la xiriirta kulamada Europa League oo meel xasaasi ah maraya, kooxaha qaar ay gudbeen oo iska xaadiriyeen afar kuwa qaarna ay sugayaan inay soo gudbaan marka ay caawa ciyaaraan. Runtii waxaan is dhihi karaa kulamo kulul weli waa harsan yihiin marka loo eego afar dhamaadka ilaa finalka kulamada kasoo bixi kara oo aan ka cabir qaadano kooxaha haray iyo kooxaha hadda jooga tartanka. Kooxaha jooga Manchester United oo Copenhagen ka gudubtay oo afar dhamaadka taagan, Inter Milan oo iyana ka gudubtay Bayer Leverkusen oo iyana afar dhamaadka joogta. Sidoo kale waxaa kamid ah kooxaha caawa la sugaya inay soo gudbaan Wolves iyo waxaa isagay Seville oo Spain ah. Iyana kooxdii soo gudubta waa Shakhtar Donetsk iyo FC Basel iyagana dab yar mashidayaan oo kooxdii soo gudubta laftoodu runtii waa kulan adag oo cajiib ah ayuu u noqonayaa Inter Milan oo markaa ku beegmaysa. Marka si guud haddii aan saas u dul maro oo aan usoo dego kulamadii la ciyaaray habeenkii xalay ahaa tartanka Europa League siddeed dhamaadka oo laga dhigay hal lug maadaama COVID-19 uu saameyn ku yeeshay ciyaaraha. Kooxina aysan markaasi ku ciyaareen wadankeeda oo Jarmalka la isugu geeyay intooda ugu badan marka laga reebo hal koox oo Jarmal ah sida Bayer Leverkusen oo kale iyo oo soo dhexgeli kara, laakiin dalka Jarmalka loo aqoonsaday in lagu dhameystiro tartanka UEFA Europa League home iyo away aan jiri doonin oo markaasi hal lug keliya bug iyo bax ay tahay oo markaa kooxdii Nagels iska tagayso. Waxaan dhihi karaa marka kulankii Manchester United ay sida dhibka badan kusoo gudubtay waxa uu ahaa kulan xidigaha waaweyn ee Manchester United ay garoonka xaadir ku ahaayeen, laakiin ay runtii adkeyd in ay gool dhaliyaan ilaa 90 daqiiqo lagu kordhiyay 30 daqiiqo dheeri ah. 30 daqiiqo markii lagu kordhiyay kadib waxaa caddeyd in weli ay Manchester ku baxsatay rigoore lagu galay Anthony Martial. Rigooradaas runtii waxay ahayd gool ayuuna u rogay waana midda ay guusha ku qaadatay Manchester United xalay. Bruno Fernandes ayaa goolkaasi u dhaliyay kaasoo ah ciyaaryahanka Portugiiska ah ee markaasi sare u soo qaaday kooxda Manchester muddooyinkii ugu dambeeyay. Waxaana la dhihi karaa mid kamid ah saxiixdii ugu wanaagsanaa oo kooxda United iyo macallin Ole Gunnar Solskjaer ay heleen. Rigooradaasi oo maadaama rigoore lagama qabti uu yahay ninkan oo 2017 ilaa iyo hadda aan markaas wax rigoore ah laga qabanin, ciyaaryahankan inta rigoore loo dhigana daba mariyay goolhayaha ama goolhayaashii uu ka hortagay. Ciyaaryahankaas ayaana markaasi goolkii rigoorada ah ee u dhaliyay usoo saaray Manchester United. Waxay sugaysaa afar dhamaadka inay la ciyaarto kooxda kubadda cagta Seville iyo sidoo kale Wolves ama Wolverhampton Wanderers ee uu horkacayo macallin Nuno Espirito Santo oo runtii ah macallin ku adkeeyay kooxaha waaweyn ee Ingiriiska. Marka labadaas kooxood kooxdii soo adkaata ayay markaasi caawa ay sugaysaa Manchester inay ku dhacdo. Dhinaca kale Inter Milan iyana xalay soo baxday. Inter bandhig qurux badan waxaa sameynaya Romelu Lukaku oo runtii 9 kulan oo xiriir ah tartanka Europa League gool ka dhalinaya. Xalay waxa uu markaasi dhaliyay goolka labaad ee kooxdiisu ay la timid, waxaana uu ahaa mid isaga oo dhulka jiifa uu ka dhaliyay. Marka Romelu Lukaku iyo Barella ayaa labada gool u kala dhaliyay kooxda kubadda cagta Inter Milan ee wadanka Talyaaniga ka socotay. Bayer Leverkusen oo wadankeeda lagu ciyaarayay isla markaana Jarmal ahna waa ay isaga hartay tartanka, inkastoo Kai Havertz oo si aad ah loola xiriirinayay kooxda kubadda cagta Chelsea oo isaguna markaa goolka u dhaliyay qur'a kooxdiisa, laakiin goolkaas uu dhaliyay guuldarro kama badbaadin kooxdiisa waa ay isaga hartay tartanka waana ay guuldareysatay. Inter waxay hadda afar dhamaadka ku sugaysaa kooxdii soo adkaata Shakhtar Donetsk iyo FC Basel oo caawa wada ciyaaray. Markaad fiiriso kulamada caawa ciyaaray labada kulan ee ugu adag labada waxay maraysaa kooxaha la yiraahdo kooxda Red Milan oo Nuno Espirito wato iyo kooxda kale ee Spanish. Bal caawa waxa u kala furan Seville iyo Wolves inay soo kala gudbaan roboonkaas daadaysa. Runtii Seville waa koox baratay sida koobkan loo qaato oo Europa League lama barayo. Seville waa kooxda inta badan markay Isbaanishka kooxaha loo eego
tartankan Europa League sida ugu cadcad markaasi tartankan Yurub uga soo dhalaasha ee Europa League loo yaqaano. Waxay haysataa fursad badan oo ay kusoo gudbi karto kulankan oo ay ku gaari karto afar dhamaadka, laakiin waxaa hortaagan macallin Nuno Espirito Santo iyo wiilashiisii Portugiiska u badnaa oo runtii ah kooxaha waaweyn ka cabaajiyey ee Ingiriiska, Manchester City, United, Chelsea, Arsenal. kooxaha waaweyn mar walba ay ka hor imaadaan Wolves ama Wolverhampton Wanderers kooxda la yiraahdo Nuno Espirito Santo uu horkaco, waxay markaa dareemaan cadaadis iyadoo kulankaasi uu yahay kulan aan si fudud lagu saadaalin karin oo macallinka Nuno Espirito kooxdiisu ay xitaa gudbi karto inta hor joogsato Seville oo koobkan qaadistiisa baratay. dhanka Barca waxay caawinaysaa kulankaada fursadda ugu furan inay ka soo baxdo ay wajahdo kooxdii soo baxay xalay mid ka mid ah Inter Barca awoodda ay leedahay. FC Basel iyana runtii koox horta halkan imaatay oo sideed dhamaadka tartankaba iska soo xaadirisay, koox fudud ma aha. Copenhagen aan ka cabir qaadan karnaa oo Manchester xalay sidii ogeyd ugu adkaysay. FC Basel maadaama sheekadu ay hal lug tahay, way adkaan doontaa in koox loo saadaaliyo la yiraahdo koox Hiblaya gudubtay, laakiin Shakhtar Donetsk iyo FC Basel waa iska awood waa iska markaasi awoodooda kooxa iska agdhoweeyaan. Marka Basel iyo Shakhtar haddii saadaalin waa laga bixinaya la yiraahdo kooxna looma go-aamin karo, laakiin waxaan isleeyahay weli Basel ayaa gudbi karta. waa gartay hawl markaad fiiriso wax loo gudbaayo waa afar dhamaadkaasi wuxuu ciyaari doonaa waa hal keliya. kooxaha la dhihi karo maanta waa ay qaadi karaan waa kooxda Talyaaniga iyo kooxda England. fursadaha u kala furan Manchester United iyo Inter in koobkan finaalka ay fiirsadaan oo midkood u qaadi karo. fursadaha horta inay final soo gaaraan labadooda waxaa markaasi hor joogta in ay wadadan qaxarka ka gudbaan. Manchester United waxaa sugaysa Seville oo koobkan qaadistiisa baratay haddii ay soo baxdo, iyo Wolves oo garanaysa sida looga adkaado kooxaha Ingiriiska siba Manchester United. waxayna noqonaysaa markii shanaad xilli ciyaareedkan oo Manchester United haddiiba ay dhacdo Wolves iyo Nuno inay soo gudbaan ay iska hor imaanayaan, maadaama tartan hore ay home iyo away isaga hor imaadeen, horyaalka Premier League-na home iyo away ay isaga hor imaadeen. markii shanaad ayay xilli ciyaareedkan noqonaysaa hal xilli ciyaareed gudihiis inaad 5 kulan iswajahdaan, waa sheeko kale oo aad u culus. marka haddiiba ay dhacdo in markaasi ay soo baxdo Wolves, waxay madaxa gelin doontaa Manchester ma ka soo bixi kartaa waa sheekada. haddii ay kasii gudubto Wolves iyo Nuno ama Seville kii soo baxday ay sii disho, markaas waa final ayay xaadirin doontaa. dhinaca kale Shakhtar Donetsk iyo sidoo kale Basel kooxdii soo adkaata Inter Milan ayay markaasi ku dhacaysaa. kooxda kubadda cagta Inter Milan ayay ku dhacaysaa oo naadiga Basel FC iyo Shakhtar Donetsk labadooda ayaa caawa markaasi wada ciyaari doona. kooxdii soo adkaata Inter Milan meel ku sugaysa, marka Inter Milan runtii iyana lama saadaalin karayo. Basel iyo Shakhtar tii soo baxda way ku adkeyn karaysaa, laakiin waxay u badan tahay saadaalintu in Inter Milan ay sidan markaasi final ku joogto. labadaas kooxoodna midkood ayaa finaalka ka Talyaanigana waa Inter. fursadda marka sanad labaad ugu furan in England lagu soo celin karo koobka wuxuu maadaama sanadkii hore laba England ay wada ciyaareen, weliba caasimadii ka wada ay wada ciyaareen reer London ah. ugu dambeyn Chelsea ay qaaday ka wada. fursad kale oo u bannaan weeyaan in Wolves ama Manchester United ay markaasi gudaha England kusoo celiyaan koobka koobyaraha Yurub ee UEFA Europa League. fursadda ugu ballaaranna waxaa markaasi sii haysan karta Manchester United, oo haddii aysan Wolves kusoo bixin oo Seville ay soo baxdo, waxaa laga yaabi karaa in Manchester United ay mar kale qaadi karto. waana kooxaha Ingiriiska halka mar ay yimaadaan tartanka UEFA Europa League inta badan markaasi koobka gacanta ku dhiga. sidoo kale Chelsea kamid ah kooxo badan oo Ingiriis ayaa jira oo markay yimaadaan tartankan inta badan ma yimaadaan, markay yimaadaan ayay markaasi qaadaan oo koobka gacanta ku dhigaan.
marka United dib ay u celin kartaa Ingiriiska koobkan oo dib ay uga dejin kartaa iyadoo kusoo qaaday gudaha Jarmalka. مع أنتوني كنت كحل وسميه بالنسبة لنا إنتر ميلان وهي مسؤولة على الدفع والكلام وهي وتعيين لأن قارنت له بل جانس كأوفر أصلا إنه مخضوع كوب قيمة وقبول اسمه مع أنتوني كنت ملقب Inter Milan dhisme xoog laha ku socda welina uu kusii soconayaa inkastoo macallin Antonio Conte uu yahay tababare inta badan ee ka faa'iideysta xidigaha khibradda leh ee da'da ah ee kooxahooda inta badan aan booska joogtada ah ka haysan isagoo xidigay da'yar kuma tashado wuxuu ku tashtaa xidigaha waaweyn ee markaasi boos la'aanta ama ciriiriga kooxahooda ku dareemayay ayuu la soo wareegaa marka waxaan isleeyahay isagana fursad weyn u noqonaysa haddii inta finalka gaaro waa u badan tahay inuu finalka tagayo uu koobka gacanta ku dhigo laakiin waxaa markaasi fursadda ugu badani ama sheekada cajiibka ay noqon doontaa markay finalka isugu soo baxaan Manchester United iyo Inter Milan iyadoo xidigihii hore ee United Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Ashley Young iyo kuwo kale ay ka hor imaan doonaan iyagoo maaliyadda Inter difaacaya kooxdoodii hore ee Old Trafford ka dhisanay Manchester United. ugu dambeyn waxaa haddii ay dhacdo sida Bundesliga Afrika aad ka dhawaajisay in Inter Milan ay finaalka ku aragto Manchester United kooxda Manchester waxaa ka hor imaanaya ciyaaryahanadii waaweynaa oo dhan bal fursada u kala furan oo koox walba la dhihi karo way ku qaadi kartaa bal Bundesliga kulankaas runtii kulan weyn oo noqon doonaa waaba haddii kooxda reer England ee Manchester United iyo Inter Milan oo waddanka Talyaaniga matalaysa ay finalka isku qabtaan macallin Antonio Conte iyo kooxda Inter Milan ba waa kuwo Talyaani ah yaqaana qaab difaaceedka wuxuuna macallin Antonio Conte ka faa'iideysan karayaa khibradda ay markaasi leeyihiin xidigaha yaqaana kooxda Manchester United dulduleeladeeda ee Alexis Sanchez, Lukaku iyo sidoo kale Ashley Young oo si fiican isfahamkooda uu sare noqday weliba si aad ay isu fahansan yihiin Ashley Young oo karoosida u keeno Romelu Lukaku isaguna uu dhamaystiro inkastoo Sanchez uu weli si fiican ula qabsan la'yahay haddana waxay yaqaanaan dulduleelada iyo meelaha looga adkaan karo Manchester United waana mid fursad u siinaysa dhinaca Manchester United waxay ku xisaabtamayaan awoodooda qadka dhexe iyo awoodooda weerarka United Paul Pogba oo nin miisaan leh oo koobka adduunka haysta iyo sidoo kale Bruno Fernandes oo Portugiiskan aadka u haysta shaashadaha caalamka muddooyinka ugu dambeeyay qadka dhexe oo ay ku wada jiraan iyo khibradda lagu daray ninka reer Serbia ee Nemanja Matic runtii qadkaas dhexe waa meesha kaliya ee looga adkaan karo kooxda reer Talyaani haddiiba finalka isku qabto dhinaca kalena Manchester weerarkeedu waa kuwo wada da'yara waa kuwo xawaaro badan haddii aysan gool ka dhalin ugu yaraan waxaa dhacaysa in difaacyada Talyaaniga ay ku jilaafaan xerada ganaaxa rigoore ayaana markaasi loo dhigi doonaa Manchester marka waa mid kale oo ay u baahan yahay Antonio Conte inuu iska ilaaliyo haddiiba uu finalka la yimaado Manchester maxaa yeelay waa kooxda ugu badan ee markaasi rigooreyaasha ugu badan kala ciyaareedkan loo dhigay 21 rigoora lagu abaalmariyay Manchester waana mid oo indhaha usii yeelan karo tababaraha reer Talyaani ee Antonio Conte.